بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي wanaagsan meel kasta joogtaan kusoo dhawaada Caalam Media 24 anigoo Cali Sheekh Maxamed waan idin warrami doonaa. Daawadayaal barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa wada hadaladii xabad joojinta magaalada Gaza ee galwadeenka ay ka ahaayeen Masar iyo Qatar iyo Mareykanka oo meel wanaagsan maraysa. wada hadaladaas oo hadii lagu heshiiyo hadii lagu kala tagaba laga yaabo inay burburto xukuumadda Israa'iil. maxaa sababi kara burburka xukuumadda Israa'iil? barnaamijkeena ayaan kaga faalan doonaa. daawadayaal markale kusoo dhawaada Caalam Media. haddii aad nagu cusubtay YouTube-ka subscribe noo saar, haddaad hore noola joogteen fiidiyoga noo share garee. aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Gaza ayaa sheegaya in duqeymihii Israa'iil ay wada ay soconayaan, sidoo kale tan duqeymo xoogan ay ku dhacayaan qaybo badan oo kamid ah magaalada. dad badan oo kamid ah shacabka Falastiiniyiintana halkaasi ay ku geeriyoonayaan. marka laga yimaado duqeymaha iyo dagaalada tooska ah ee meelaha qaar ka dhacay magaalada Gaza, sidoo kale waxaa soconay wada hadalka la doonayo in xabad joojin looga gaaro dirirta magaalada Gaza ee muddada 200 ee maalin ka badan soconaysa. fuud kala duwan oo ka socota wadamada dhexdhexaadiyaasha iyo si la mid ah labada dhinac Israa'iil iyo Xamaas ayaa lagu wadaa inay gaaraan Qaahira, sidoo kale tan qaybo kamid ah ayaa halkaasi la sheegay inay gaareen. wada hadalka oo meel wanaagsan maraya, Xamaasna hore u sheegtay inay heshay soo jeedinta Israa'iil dhankeeda ka timid ayna daraasinayaan jawaabta ku habboon ay ka bixin doonaan. wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in Xamaas jawaabteedu ay diyaar tahay. TV Al Jazeera ayaa soo xigay saraakiil ka tirsan ururka Xamaas kuwaas oo sheegaya inay jawaab ka bixin doonaan dhawaan soo jeedinta Israa'iil. sidoo kale tan wafdi ka socda Xamaas oo hogaaminaya Khaliil Al-Haya ay gaari doonaan magaalada Qaahira. wada hadalka meel wanaagsan maraya, waxaa la filayaa inay ka soo bixi doonto xabad joojin dadka Falastiiniyiinta gargaar lagu gaarsiiyo, sidoo kale tan maxaabiista Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta qaybo kamid ah la isku wadaarsado. Xamaas dhowr mar waxay soo jeedisay inaan marna aqbali doonin wax xabad joojin ah oo aanay ku jirin in dagaalka si rasmi ah lagu soo dhameeyo. dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa burburka xukuumadda Israa'iil ee Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo haddii la aqbalo xabad joojinta iyo haddii la diido labadaba. wasiirada kooban ee xukuumadda Israa'iil ee loogu yeero wasiirada dagaalka qaybo kamid ah ayaa hanjabaad ka soo yeerayaan, iyadoo qaybo kamid ay ku hanjabayaan haddii la diido heshiiskaasi hadda soconaya in xukuumaddu aanay xaq u yeelan doonin inay sii jirto, oo macnaheedu ay tahay in burburi doonto ayagu ay ka bixi doonaan. halka qaybo kale tan ay ku hanjabayaan haddii heshiiskaasi la aqbalo in xukuumaddu ayna xaq u yeelan doonin inay sii jirto, oo macnaheedu sidoo kale ay tahay in ayagu ay ka bixi doonaan. xukuumadda oo ku dhisay isbahaysi heshiis ay ku gaareen xisbiyo kala duwan, qaarkoodna yihiin xisbiyo midigta fog oo aad u xag jira, ayaa cabsi laga qabaa in burbur xoogan uu ku yimaado, waxaana Netanyahu haysata laba daran mid dooro. Benny Gantz ayaa sheegay in haddii xabad joojin maxaabiista Israa'iiliyiinta lagu sii daynayo la diido ay xukuumadda Israa'iil aan xaq u yeelan doonin inay sii jirto, taasoo macnaheedu ka dhigan yahay haddii heshiiskaani ay xukuumadda Israa'iil ee Netanyahu hogaaminaya hirgelin weyso in asaga iyo xisbigiisuba ay isaga bixi doonaan. dhanka kale laba wasiir oo xag jir oo ka tirsan xukuumadda Netanyahu ayaguna ku hanjabay haddii ay xukuumadda Netanyahu aqbasho heshiiska xabad joojinta ay hadda laga shaqeynayo inaanay xaq u yeelan doonin xukuumaddaasi inay sii jirto. labada wasiir oo kala wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich iyo sidoo wasiirka amniga gudaha Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo laba wasiir oo xag jir ah asxaabta midigta fogna ka soo jeeda ayaa ku hanjabay in xukuumadda Netanyahu sidoo kale ay xaq u yeelan doonin, taasoo macnaheedu loo fahmay in ay ka bixi doonaan xukuumadda haddii Netanyahu aqbalay xabad joojinta si maxaabiista lagu sii daynayo. hadaladan iska soo horjeeda ka soo baxay xukuumadda Israa'iil wasiirada ka tirsan waxay muujinaysaa Netanyahu ay haysta laba daran mid dooro oo kala ah inuu heshiiska aqbalo oo meesha ka saaro wasiirada xag jirka ee Itamar Ben-Gvir iyo Bezalel Smotrich iyo si la mid dhanka kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Benny Gantz oo asaguna wasiir awood badan kana soo jeeda mid kamid ah xisbiyada isbahaysiga la xukuumadda Netanyahu kana mid ah wasiirada dagaalka ee Israa'iil ee hadda shaqeeya. Xamaas dhankeeda lama oga jawaabta ay bixin doonto, inkastoo dhowr mar ay ku celceliyeen haddii heshiiska aanu ku jirin ka bixid rasmi ah Israa'iil isaga baxaysa magaalada Gaza iyo dhammaan dagaalka la soo gabagabeynayay marna aysan aqbali doonin xabad joojintaasi. sidoo kale waxaa kamid ah dalabaadka Xamaas in madax sarsare oo ururkaasi ka tirsan oo xabsiyada Israa'iil ku jira la sii daayo. daawadayaal intaas ayaan qodobkeeni koobnaan uga hadlaynay xaaladda magaalada Gaza, heshiiska xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xamaas ee meesha wanaagsan maraya iyo isla mid ah burburka laga cabsi qaba inay burburto xukuumadda Israa'iil ee Netanyahu hogaamiyo. intaas ayaan ku soo koobaynaa.